فطرة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، فاصدح به خيرا يمحو الشياطين. طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا، تقوده لجنان شوقها فينا. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا. sheekadu waxay ahayd annagoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary oo magaalo ku taala Canada oo sheekh way ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh Ilaahay subhanahu wa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahab leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay mafaatinkii ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii marna waxay tidhaahdaa that is beautiful way aad bay u qurux badantay ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala tawxiidka inuu ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu ilaahay halkan inala joogin inaanu ilaahay inagu dhex jirin inaanu ilaahay inaan lahayn inaanu ilaahay reer lahayn inaanu ilaahay way ka mabsuuday waxay tidhi that is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nabi maxamed iyo icjaaskiisii iyo caalam al-ajinna iyo embryology-ga iyo inuu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam quraanka loogu sheegay maraaxil ibn aadamka loo sameeyo iyo maraaxil ku ji waxa dhan u sheegay aad bay ugu mabsuuday marka shantii rukun u dhameeyay ayay tiri I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tiri qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tiri anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay waxaanad arkaysid ilaahay wixii qalabkii uu siiyana waan iska zuulay oo waan iska gooyay gabadh baan ahay ilaahay dambiga may dhaafaya ilaahay dambiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa tolo ma eegtaa mise waa dambi ila ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha imika ma kor baad u eegtaa oo ba wejigaad aragtaa mise waa dambi miyaad ka jeesataa maxaad u sharaxdaa haddii ay muslimto xaggaan geeyaa ma xijaab baan u xidhay dumarkaan u geeyaa kowdha mise waxaan idhaahdaa khamiis soo xido raggaysa soo dhex taga adigoo intaan xambaarsan ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo dee haddaan idinku idhaahdo waa dumarkii nin baa la tukanaya dee way dilaysaan haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana dee khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku idhi marka waa arrin weyn waa dembi ilaahay laga galay subxaanahu wa tacaala khalqigii ilaahay ku siiyey subxaanahu nin buu kaa dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaabo isku beertid inuu aaladii ilaahay ku siiyey aad ka goysid inaad meel kale waxyaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu talin baad dhex gashay bal u kaadi
ilaahay wuxuu ii hawl yareeyay inaan sacuudiga tago marka waxaan la kulmay cabdalla alxuqayl wadaad la yidhaahdo ani waa sheekha ii geeyey muftigii buu ii geeyey muftigii baan ku uri yaa fadiilati sheekh xaalad sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa jirta fama alxukm wadaadkii intan ka filayey inuu fatwo isiiyo wuu dawakhay markaasuu maroola dilaacay qaala ayucsi illaah bihadihi ariiq wamasaasa ilaahay dembi looga galaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata ila billah markaasuu marra iga sii jeesta markaasuu u ignoor gareeyeyba wadaadka halkaasaan ag fadhiyaa sheekha waxaan ku leeyahay sheekha qofka wuu isugayaa kanadaan ku noqonayaa iftina fi lmas'ala sheekhu marka wuu iga aamusay wax allaalayo wuxuu igu idhaahdo markan la hadlaba wuxuu idhaahdaa laa xawla walaa quwata ila billah yaa sheekh gabadhii mayayn muslim mise gaal baynu ku daynaa laa xawla walaa quwata ila billah markaasaan ku uri yaa sheekh aziidak min ashicri beyt aan kuu sii kordhiyo waana guurdana maxaynu samaynaa markaasuu yidhi ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun mid daba fadhiyaa yidhi yaa sheekh qul lahu yaktub fanajcaluha aw nadacha amaama allajna fatwada ha soo qoro wadaadku ha soo qoro waxaynu u gudbinaynaa way inaga weynaatay macsiyadaasi fadhigii marka wixii meesha joogay oo dhan xanshashaq war miya dhacday ma ilaahay baa sababo dembi looga galay ma macsiyadda waxaan dareemay marka majliska ina dembiga ilaahay laga galay ee kanada lagaga galay ee qof gaali uu ka galay inuu taabtay wadaadka halkaa jooga waxaana ii caddaysay marka wadaadkan ii hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro inuu wadnihiisu marka aanu aradin oo aanu asaguna angegnayna inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankii ku daayey oo iimaankii ku abuuray waxaan jecelahay markaa walaalayaal inaan intaa ku soo gunaanado ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga haynoo barakay laakiin calaamado fara badan baa jira oo la ysku arko haddii inta aan taataabtay aad isku aragtid ama aad ogaatid inaad calaamadaha ay adigu aad calaamadaad ku dhex jirtid ay yihiin isgaad oo nafta badbaadi oo wadnaha waxaad ku rushaysaa shay min dikri illaah wa tilaawati alqur'aan iyo masaajidkood la yimaado iyo naftaad aad u xakamaysid waayo naftan bini aadankii waa cajiib waxaad bartid ayay raacdaa haddii aad markaa طaacat illaah iyo qiyaama leyl iyo dikr iyo qiraa'at alqur'aan iyo waxyaabaha ilaahay uu jeceliya aad nafta ku maaweelisidna naftu way ku soo raaci haddii aad ku mashquulisid waxyaaba bilaa macno ah ciyaaro la daawanayo suuq dumar suuq la geynayo caruur kabahoodii iyo koofiyadahoodii laga shaqaynayo waxyaabo umuura dunya aad isku mashquulisid ayadoo aad kula tagtay ay kula fogaatay baad arki doontaa markuu malakal mowt uu yimaado aniga intaasay iga tahay ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أدري إن ولا دد وقت السؤال يجواب أي جيران ينكله حكمي gabadha maxay ka gaadhay culimadu horta culimadii way isku khilaaf way sheekh ali sheekh iyo abdallah al-mutlaq oo joogay marka ya al-huqayl ya ghadayan intaba way joogeen wixii dhintana rahimahumullah inta kana xafidahumullah way wax fatwada way siin kari waayeen waxaan u tagay marka sheekh la yiraahdo Abdul Aziz al-Fawzan عبد العزيز الفوزان waxay isu yihiin sheekh Salih al-Fawzan waana sheekh nala joogay Mareykanka 5 sanadood
وأحوال الغرب يا مشاكل كغرب كتشرة إمشى السنوات ده لدح النولا مسألة دي مركا وحيري وحواجب إن قبرني سيدي وإلهي وأبو ريسكو عليسو ومركا وحن أيس جليسي إسكسارته إن اسكن مدو هرمونات كي لو قلت لقى إن للذكور أو الذكورية مركا ميل هرمونز بعيد هذا مركا الرجل نمدي وين السوء عليسا مركا إربدا اسكن مدانو إربدا هني قد تميه بكتشريا عد كي بكتلقيا عد ناعم أو صافت إن واي واحد اسكن مدان هرمونات أنثوية مركا وين هرمونات ذكري اسكن مدا أو أصل يسكن نقطة waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sanada ah iyo lacag fara badan marka loo doono marka aalati dhakra loo doono ila aalati untha wamka ayu xambaarsan yahay gabadhu iska dhiga marka waa nimada lagu soo celiya mar labaad waxaan muddo qaadanaysaa fadilati sheekh muddada maxaa la sameeyay kayfa yutaamal ma'a hada al-insan sideebaan ula mucaamilna marka wuxuu yiri fi waqti al-haadir waqtiga haadirka waxay asligu isinu xukunka sharciga uu ognahay qofka bini aadamka waa saddex waa dhakar waa untha iyo khuntha saddexdaa weeye ama dawaanin ama waa gabadh ama waa labeeb marka wuxuu yidhi labeebkii ma gelin karo ilaahay saa umu abuurin ayadaa iska dhigtay waa asagaa iska dhigay laakiin bixukma daahirkii haddii qofku doonaya inuu masaajid yimaado ولا بد إنه مساجد يمادو وإنه قسم الدمركة لغو بيريا مركا قسم دمركة وإنه لغو بيريا حدو مركا عدكو وصو نغضو وأركو مركا إنه وسوق ليو قسمي أما نوعية الرجولية أما نوعية الرجل وسوق ليو مركا وإنه مركا حق الدمركة لوسو وريتي وحن مغلي وحنو مالينا يا حق الرقع عفوا وحنو مالينا يا إنه كل عدين مسألة ساسو كلاء أين النمسا أما سويسرلاند يموت السوير الملبى كل عضي إمامكم مركا وحكر لجي إمام كاسي حكم الخنثى لكن الشيخ الفوزان وحول حكم الخنثى يا أيضا إني ولاد كان الله هذا سلمان عودة حكم إن اللوع ليو أصل جيس يقف والله أعلى وأعلم